الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وحاول مناسبة يرقو كاوان أو ويلبا وقت عرير هيان كسميني هذيك أنت سوي كسي وينان لهاد ومناسبة وصدوينتا حلبان كنا مذاني بروفيسور برعي محمد حمزة حمد marka hadda waxaan siinay dad kale oo ayagana ka hadli doon halkan ya okay maxamed uu ka mid yahay maxamed jeelani maxamed jeelani oo ku magac dheer yahay maxamed ji asna halaga dhageysto in yar shan daqiiqo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. dadweynaha sharafta leh waxaan u sheegayaa maanta inuu ku soo beegmay sanadkii aan aasaasnay xisbiga mideynta horumarinta dimuqraadiga Soomaaliyeed hal sano ka hor oo inta aan ka furnay dadkii ay wada joogaan dhammaantooda waxaan u sheegayaa in xisbigu uu furmay laakiin wax saas tayo leh uusan gaarin anagana waxaan sameynay lobin weyn inaan maaragtay ka bilaabno shaqooyinka dalka Soomaaliya khaas ahaan magaalada Xamar xisbigu wuxuu sameeyay waraaqooyin badan oo qoray oo ku daabacnay joornaalada magaalada Xamar ka baxa shan halkan fadhiyo oday la yiraahdo xabad oo asagana laba kelmadood inuu naga yiraahdo madax dhaqameedkeena. Bismillahir Rahmanir Rahim. walaalayaal habeen wanaagsan laba mashruuca meesha loo yimiday mid waa xildhibaanka soo dhaweyntiisa mudane burci waa la yaqaanaa nin aqoon la waaye dadka la yaqiin waaye dadka hore loo yaqiin waaye dad la baray hadda halkan mana joogaan mana muuqdaan mana joogaanba ninkan aada loo yaqaan nin Soomaaliyeed xildhibaan waaye baraawo ku soo galay ama gibilcado ku soo galay hadda ma waa xildhibaan Soomaaliyeed waaye horta in la kala kasaaro السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله. dadweynaha sharafta leh maanta waxaan inta u imaanay inaan soo dhaweyno MP-geena mudane professore Burci oo inta nala jooga maanta Mr. Burci kusoo dhawaaw London kusoo dhawaaw community-gaaga kusoo dhawaaw xisbigii ku taageeray xisbiga mideynta horumarinta Soomaaliyeed xisbigan waxaa la aasaasay waxaana launch lagu sameeyay isla maalintan oo kale hal sano ka hor xisbiga horumar uu gaaray waxaana ka mid okay waa sax marka dadkii la doortay ka mid ahaa oo ansixinayay dastuurka waxaana nasiib u yeelanay inaan aadno Muqdisho حتى waxaan u dooranay inuu yahay Ibrahim Sadat Sufi oo ka tirsan yahay dhalinyarada Ibrahim Sadat Sufi oo Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, we speak English and we came into this country in 1992 and the new generation right now everybody speaks English, so I'm pretty sure the guys at the front can understand what I'm saying, yeah? Any translation. With our community, we're Barwani people, and we're a very small community. We have exponentially grown, and there's in the region of thousands of us now. And what we need is we need to support each other. We need to come together, unite each other. Engineer Abu Abba Sheikh, حياكم حيا. أبو أبا شيخ فليتفضل. هي بعض كان أبو أبا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan jeclahay inaan ku hadlo baraaga ay dadkii ay ku badnyihiin waa dadka baraaga yaqaan
salaan kadib waxaan soo dhawaynaynaa walaalkeena burci dadka dhan waxa u yaqaanin burci Said Hamza laakiin ma aha burci Said Hamza burci Mohammed Hamza Said Hamza waa dad nin reebarawa la yaqaano wax badan uu ka shaqeeyay isa burci ni mtu amini wote vitu jamia uko mtu nasulakisho burci nani tako isa burci Muhammad Rufai Hadile kuaini mtu ustadi waliko profesore basi mimi kabila burci ni mtu politika waliko mtu dorseta wakati ya adibu waliko ministro waliko ulamo na miwa isa kinasula khiwisha burci kuawe suwe peke wena wantu wazito iluko khusada yaro nasulo kufanyika جزاك الله خير حتى waxa ku xigo imika ugaas qaasim dinki qaasim dinki oo ka wadaadka ayuu leeyahay ugaas qaasim dinki السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتمين إيش خضراء جسمار إيش خضراء. وحنكو عن الله هاي ولا كان برعي هلبان كان وحنكر جيننا إننا نديرو سلام جارسيو هلبانا ذا كتر سندق المرفلة يردك كسوج جدا قبلا جبوينك. قدومي كحجينك حزبك أساسها قوات محمد حبيب محمد نور فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متكلة وحن ربا إن نكبل له مناسبة لو مناسبة الله ماشي عن قدنا كو عوات كوات الوسط ده حل بانك بروفيسور برعي محمد حمزة وهرا الله شيء ودلالي مرهر الوزير دور جركعها دولته كمال جركعها هدنا ويا حل بانك نمثل أنا قاعدين أساسا أبو بحايا نحن حزبك مركز هول بدن أيام خبتي warqado badan noo maqan si deegaanadaas wax loogu qaban lahaa marka waxaan rabaa inaan salaan hawada u gudbino madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Usmaan Jawaad بريم منسترها أو عبد فارع ساعد برلمان كأردن يحد بانك نفديو برلمان كأردن جودي قلا وزارة كل جوه سلام تاس أيام إيجنا هذا وجود بيننا هسا عاته وأماننا وحنكو أماننا وحيكبحين dadkii la dhahay 4.5 waxay dhahan dadku waa isku mid cadaaladda ayay bilaabeen waxaan leenahay meesha ka sii wada saddex habal ay ku hadlayaan ay ku soo celceliyaan markas oo aad u wanaagsan kow waxa waaye cadaaladda laba amniga saddex inay adeego u yihiin dadka ay iyaga adeego u yihiin madaxnimadooda هاي حدنا وحن سوق يعني قبل وحن إذن كعطر دارنا وقت يقول نغير أودي ده أيان هذا وحنا قاري وقت أو حلبان كنا بروفيسور برعي محمد حمزة فليتفضل مشكورا لبكي المدد المميزة بسم الله الرحمن الرحيم وحان aad iyo aad aan ugu faraxsanahay caawa in aan la kulmo Soomaalida u dhashay deegaanada Baraawe aad aan ugu faraxsanahay
anu waxaan iri soomaalida u dhashay deegaanada baraawe dabcan waxaana la joogaa walaalahayna kale oo aan ahayn dadka u dhashay deegaanadaas waa soo dhaweynaynaa iyagana waxaan leenahay gacan furan ayaan ugu soo dhaweynaynaa deegaanadeena haddaad aad muxuu ahaa aad doonaysaan in aad ka qayb gashaan horumarinta deegaanadan ahlan wasahlan waan soo dhaweynaynaa waxaa marka xilka ii saaran waxaa waaye in danta deegaanadaas inaan ka shaqeeyo marka hore kadibna danta gobolka shabeellada hoose inaan ka shaqeeyo kadibna in aan muxuu ahaa aan ka fikiriyo danta guud oo ah danta soomaalida oo dhan anu waxaan ka mid ahaa federalismkan inay ay tixgelaan waxa waa waajib federalismka ma ahan muxuu ahaa in Soomaaliya la kala gooynayo ma ahan laakiin waxaa la doonayaa dadka matalan dega shabeellada hoose inay awood ay agana ay lahaadaan si ay muxuu ahaa deegaanadooda sida ay u horumari lahaayeen ma ahan xamar inay ay horumariso oo magaaladan caasimadda mase xukuumadda dhexe inay horumariso laakiin dadka meesha degan inay ay ka shaqeeyaan sidii ay deegaanadooda iyo gobolkooda u horumari lahaa